qaranka Soomaaliyeed maalin waliba marka laga reebo maalinimada Jimcaha saaka waa sabti taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 22ka bisha 9aad sanada 2019 barnaamijka halkan waxa idinkaga daadihin doona Axmed Cali Kaahiye iyo anigoo ah Marin Janaqo Axmed qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta saxiixaya sharciga guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay horay u soo meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda daawadayaal barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah uu diraale ka noqdo sidoo kale qodobada aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxa ka furmaya shir u dhaxeeya bahda cadaaladda dalka oo looga hadlayo hagaajinta garsoorka iyo wada shaqeynta taliska ciidanka xoogga dalka iyo wasaaradda gaashaandhiguna waxa ay ku howlanayeen muddooyinkii ugu dambeeyay tayeynta iyo dib u xoojinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo cutubyo ka tirsan xoogga dalku ay tababaro ku soo qaadanayaan dalal badan oo dhowr oo dibadda ah iyadoo dalka Turkiga uu ka mid yahay dalalka askarta ugu badani ay tababarka u aadeen wasiirka gaashaandhigga dalka ayaa ku dhawaaqay in ay ka go'an tahay dib u dhis xooggan oo lagu sameeyo ciidanka xoogga dalka Soomaalida ku nool dalka Norway oo walaac xoogan ka muujiyay arrimaha falalka cunsurinimada iyo sharci kala noqoshaha dadka waxaana halkaasi laga hirgeliyay qareeno u istaagay inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed qodobadaas iyo kuwa kale ayaan daawadayaal saaka iyo dunida haddii Allah uu diraale ka noqdo in kugu soo gudbin doona muddada saacada ay u baxayo marka hore warka koobnaa Mawlid Maxamed Sabriya ayaa nooga soo gudbinaya studio wararka ee telefishinka بسم الله الرحمن الرحيم داوديال dhamaantiin ba meel kasto idin joogtaan ku soo dhawaada warka oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunida oo aad kala socotaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta oo sabti ah saxiixaya sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ay hore u soo ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka hay'adaha dawladda qaarkood ururada bulshada iyo saxaafadda ayaa lagu casuumay munaasabadda saxiixa sharcigan oo ka dhacaysa madaxtooyada qaranka waxaana telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo idin ballan qaadaya in uu si toos ah idinku tabin doono munaasabadda saxiixa madaxweynaha sharcigan waxa uu ahmiyad ballaaran u leeyahay dalka oo waqtigan ka soo kabanaya colaado in muddo ah oo ku jiray waxaana hay'adaha dawladda u fududeynaya inay gaaraan hufnaansho dhinaca maamulka ah magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeedna ayaa maanta waxa ka furmaya shir u dhaxeeya bahda cadaaladda dalka kaas oo looga hadlayo hagaajinta garsoorka iyo wada shaqeynta gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed xeerlaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir xeerlaaliyaha dawlad goboleedyada iyo mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galaya shirkaasi arrimaha sida gaarka ah looga hadlayo ayaa waxa ka mid ah dib u habaynta maxkamadaha xoojinta fulinta sharciga iyo isku xirka hay'adaha cadaaladda dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay ciidamo iyo hub u dirayso dalalka Sultanka Imaaraadka Carabta iyo dalalka Sacuudi Arabiya kadib weerarkii lagu qaaday xarunta shidaalka lagu sifeeyo ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya xogayaha gaashaandhigga dalka Mareykanka Mike Esper ayaa xusay in madaxweyne Trump uu saxiixay qorshaha uu ciidamo loogu dirayo dalalkaasi si ay u noqdaan kuwa Iran ka difaaca gantaalaha Mareykanka ee Khaliijka ama danaha Mareykanka ee Khaliijka Mareykanka waxa uu Iran ku eedeeyay inay mas'uul ka ahayd weerarkii sabtidii hore lagu qaaday laba xarumood oo ay leedahay shirkadda shidaalka Aramco ee dalka Sacuudiga balse Iran waa ay diiday in weerarkaasi ay ku lug lahayd warka oo kooban oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed akhyaarta wadana dhageysanaysa inta ayaan ku soo gabagabeynaya markana aan dib idinku celiyo barnaamijka saaka iyo dunida qaybihiisa inooga harsan
وهاجاك داود يا لالكا إنه كجسوا قد منه مولد محمد سفريون على السعود سينية وركا كوبنا برنامج كاساكي الدنيا سوى وهذا داود يلا بيلا بدنا جلس عطان هي سوى البرنامج كمركزي وداون الإسلام بكوسوا وهذا حق لما يصيرنا وأنا كوسوا من دون برنامج ما أنت أما هاتم بوحة عطان قام قابضة حفلة لغو صحيح أيوة أمام مدحوينها الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد عبد الله فرماجو وكو صحيح أيوة sharciga guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo horay ay u soo meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyaddu xafladda saxiixa waxa ay ka qabsoomaysaa xarunta madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya haddaba hay'adaha dawladda qaarkood wasiirada ururada bulshada saxaafadda ayaa lagu casuumay munaasabadda saxiixa sharcigan oo ka dhacaysa madaxtooyada qaranka waxaana telefishinka qaranku si toos ah bulshada ugu tabin doona xafladda madaxweynuhu ku saxiixayo sharciga guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa sharcigu waxa uu ahmiyad ballaaran u leeyahay dalka oo waqti ka soo kabanaya colaado in muddaana ku jiray waxaana hay'adaha dawladda uu fududeynaya inay markaasi gaaraan hufnaansho maamul iyo in dalku kaalin weyn ka qaato la dagaalanka musuqmaasuqa oo in muddaa markaa lagu dhaliili jiray in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka musuqmaasuqa uu ka jiro haatanse dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aan ku gaartay inay samayso sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddiga markaasi oo wasaaradda cadaaladdu ay ku dhawaaqday in si dhaqso ah loo hirgelin doono oo loo dhisi doono guddigaasi wasaaradda gaashaandhigga dalka oo sheegtay inay wado tayeenta iyo dib u dhiska dhismaha ciidanka xoogga dalka kuwaas oo qayb ka qaadanaya sidii dalka looga sifayn lahaa argagixisada xasan cali maxamed amar dambe wasiirka difaaca dalka ayaa ka hadlay qorshaha dhismaha ciidanka xoogga dalka waxaana kamid ahaa hadaladiisii marka waxa isku wadnaa ciidankii in la dhiso dhanka ii sheeg adiga commandoska ama sida askarta inventory in la dhiso waxa haddana meesha ka marmeen in la helo abaanduulayaal ama saraakiil iyo saraakiil xigeenno oo ciidankaasi hogaankooda qabto oo aqoon duruqsan u leh saraakiishana u jeedid waxaa lagu xulay aqoon waa dad marka hore oo ii sheeg adiga jaamiciina oo wax bartay oo qaar iyaga ka midana 2 sano runtii ay kulliyadan turqsan ku qaatay koorsigooda oo 2 sano waa dad hadda aan rajeynayno inay mustaqbalka ay u noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mustaqbal ay u noqdaan waa dhalinyaro oo runtii aad iyo aad u wanaagsan akhlaaqdooda iyo dishibliinkooda aad iyo aad u wanaagsan waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ka rajaynaynaa iyagoo caafimaad qaba inay dalka dib ugu soo laabtaan runtii tani waxay qayb ka tahay dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ciidankana u jeedid waxay ka kooban yihiin ciidanka dhulka ciidanka cirka ciidanka badda ay ku kooban yihiin waana saraakiil waxaana runtii aan rajaynaynaa in ay tahay waa waqtiyada ugu quruxda badan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu soo maray in ciidamo fara badan oo dhalinyaro ah oo runtii jaad aan cunaynin oo balwad lahayn oo ciidanka ay ku soo biiraan runtii farxad weyn oo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed u soo hooyatay waaye gaar ahaanna fursad runtii u soo hooyatay waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka rajaynayaa in uu caafimaad iyo iyagoo oo bad qaba dalkooda ay ku soo laabtaan waxaa kaloo aan rabaa ii sheeg inaan shacabka Soomaaliyeed aan la wadaago aan rabaa inaan u sheego dalka waa soo laabanaya dalka nabadgelyadiisii amnigiisa wuxuu ku xiran yahay amnigiisii wixiisa nabadgelyadiisa wuxuu ku xiran yahay ciidan oo hufan oo karti iyo amaanad leh dalka uu yeesho dalka dib ayuu soo laabanaya nabadii waxaan haynaa dalkeena uu dib ugu soo laaban lahaa barwaaqadii iyo bashbashkii iyo nimadii aadna ugu faraxsanahay aniga wasiirka wasaaradda gaashaandhigga in aan waqtigan aan ku soo aado intaano xilligii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu dib u soo laabanayo oo reformkiisa dib ugu soo laabanayo xilligii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee la tiriyay xilligii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii humiliation iyo fafaalo wanaagsan uu yeesho maanta inaan aan ku soo aado aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii aad iyo aad ugu go'an
inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan la dhiso iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii har iyo habeen waqti badan ku bixiyo dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed runtii iyagana waxaan rabaa inaan ugu codsado fursadaani inay ciidankooda ay la shaqeeyaan inay ciidankooda aaminaan in ciidankooda ay garab siiyaan haddii shakhsiyaadkii wiilashii aad dhasheen ay naftooda ay bixiyeen ay u diyaar garoobeen inay naftooda u bixiyaan dalkaani idinkana waa inaad biyaha ku daba qaadaan waa inaad ii sheeg adiga information aad warbixinada aad la wadaagtaan inaad aamintaan aad ku kalsoonaataan anna ilaahay waxaan ka baryaynaa oo ilaahay aan weydiisanaynaa in annagana aan xoogga saarno inaan soo saarno ciidamo runtii lagu qanacsi karo lagu kalsoonaan karo la aamini karo aaminaadda ay jirkooda ku jirto aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay halka wasiir waxaan rabaa inaan weydiiyo waxaa sheegtay in taqsiyo kala duwan oo badda iyo dhulka iyo cirkaba inay u socdaan oo turkiga u socdaan mise ayay maqnaanayaan ciidamada hadda saraakiisha waa mahadsan tahay qaarkooda waxay ku xiran tahay daraasadaha oo markaas la siinayo qaar 2 sano maqnaan doonaan qaarna 1 sano ay maqnaan doonaan qaar 4 sano ay maqnaan doonaan marka waxay iskugu kala jiraan hadba ii sheegay takhasuska uu soo qaadanayo ii sheegay askariga laakiin waa mustaqbalka ummadda annaga waxaan rabnaa inaan xad u diyaarino ba next 5 years dalkan soo yeelan doona saraakiil nooc u yeelan doona laakiin waa dad markii hore dugsi sare ka baxay waa dad jaamacad ka baxay oo shahaadooyin wata oo jaamacad ka baxay darajada koowaad iyo darajada labaad kala wata ay ka mid yihiin marka waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala ilaahay idinkiisa inay dalka iyo dadka iyo diinta ay anfici doonaan ciidamadan ay wax ka bedelaan saraakiishan hadda turkiga ciidamada والله waa muuqataa hadda ciidamadani maanta aan Turkida aan u dirno ciidamada runtii Mareykanka ay noo tababaraan oo danab iyo ciidamo kale oo hadda EU teamka ay noo tababareen ay ururkan 143 battalion oo maanta sabiidi xaano dhulkan jooga way ka duwan yihiin ciidamadeena ii sheeg adiga disciplinkii iyo waxa la baraa iyo code of conduct iyo kala dambeyntii iyo qofku oo marka horeba asigoo maadi ah oo dhisan oo ii sheeg adiga aqoon leh oo ciidan ku soo biiray qofku markuu ii sheeg maadi ahaan ugu dhisan yahay waxyaabaha la barayo waa ii sheeg adiga habraaciya la baraya insha Allah oo ciidankii wixii wax waay aad bay wax ugu soo kordhin karaan waana runtii waa muuqataa tan iyo xukuumadan hadda jirto 2 sano barka la soo dhaafay isbedelka ciidanku uu sameeyay waa u jeedaan runtii waa arin aan dhihi karo waay waxaan haynaa dhaabadii saxda ahayd oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sharafkiisa iyo karaamadiisa ay hore u lahaan jireen oo lagu soo celin karo waa hagaag daawadayaal halka inuu kaga soo gudbino wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed ayuu ahaa oo ka warbixinayay dadaalka dawladda Soomaaliya ay ugu jirto dib u dhiska ciidanka xoogga dalka iyada oo arintaasi ay muddooyinkii dambaba soo socotay isla markaa waxa uu hadalka ka sheegay mar uu sagootinayay saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan xoogga dalka oo tababar aqoontooda sare loogu qaadayo ku soo qaadan doona dalkan walaalaha nahay ee Turkiga barnaamijku waa saaka iyo dunida daawadayaal fariimihiina aad nagala soo wadaagaysaan baraha bulshada ee Facebook ugu horeeyana dabcan wixii aan ka gaarno waan akhrin doonaa aad baad nagu mahadsantihiin talooyinka wanaagsan iyo bogaadinta aad u jeedinaysaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya iyo si gaar ah hay'adaha dawladda marka aan haatan u jeedo komentiyal badan ama fariimo badan oo ka soo gudbinaysaan saxiixa sharciga maanta madaxweynaha jamhuuriyadda uu meel marinayo ama uu saxiixayo la dagaalanka musuqmaasuqa oo dabcan ah sharci ummadda Soomaaliyeed ay aad baahi ugu qabto barnaamijka ayaan sii guda galaynaa qodobada kale ee noo harsan guddiga waa markaasi wasaaradda baydhabo waa ku soo laaban doonaa halka aan markaa qodobka kale soo qabto guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo hay'adaha kala duwan ee dastuurka markaasi ka shaqeeya ayaa waxa ay kulan la qaateen dhalinyarada magaalada Muqdisho oo ay markaa kala hadlayeen sidii ay qayb ugu yeelan lahaayeen arrimahaasi haddaba Cabdiqaadir Ali Axmed ayaa warbixin nooga diyaariyay kulamo badan oo ay yeesheen wasaaradda dastuurka iyo guddiga iyo dhalinyarada Nigeria markastaana waxaan qayb ka ahayn guddiga waan la shaqeynay oo kulamo badan aan la qaadanay qaasatan wasaaradda dastuurka muhiimadda uu dhalinyarada u leeyahay dastuurka markaan fiirino kulli dhalinyarada ay fadhiyaan ra'yigooda way dhiiban doonaan laakiin waxaan rabaa inaan guddiga iyo qof kasta aan xasuusiyo dastuurka oo waddan kasta uu leeyahay waxay tahay dadka uu saameyn toos ku yeelan doono mustaqbalka waxa waaye dhalinyarada
maadaama ay yihiin dadka bulshada hadda ugu badan ee boqolkiiba 75 codsi aan wadanaa oo ah in dadka guddiga maadaama kulligood waa ku kalsoonahay wasaaradda sidoo kale laakiin waxaan rabnaa in ay aad iyo aad nooga fiiriyaan mar walbo dastuurkan uu noqdo dastuurka tarjumaayo danaha mustaqbalka ee dhallinyaradan ay yeelan doonaan sababtoo ah waxaa jirto dadkii anaga naga horreeyey waxyaalo badan ay sameeyeen oo hadda dadka Soomaaliyeed ay ka shalaynayaan jirto siyaasad soo dhicin in waxyaalo badan la sameeyo inkastoo aaminsanahay dastuurka hadda uu aad u fiican yahay hawsha ay wadaagaan guddiga hawlo badan ay ka soo qabteen anaga doorkeena wuxuu noqon karaa in aan mar walbo ra'yigeena dhiibano wixii aan u aragno in ay saxsan yihiin iyo waxyaalaha u baahan wax laga bedelo ra'yigeena badana dhalinyarada qayb kasto ilaa gobolada tagayna umaleynaa guddiga way la soo kulmeen dhalinyarada wayna arkeen in ay dhalinyarada doorkooda ciyaareen sidoo kale waxaa kale oo codsanaynaa waxay tahay in xoogaa la dedejiyo dastuurka si maadaama ay waxyaalo badan nooga xiran yihiin doorashooyin ay soo dhow yihiin howlo badan oo dastuurka u xiran ay jiraan sababtoo waxaa la arkaa badanaa yacni dhalinyarada markasta waxay isweydiiyaan dastuurka waqti u qaatay maxaa jiro marka waxaan rajeynayaa in hadda maadaama guddiga u dhahay 15 cutub dib u eegis loo sameeyey isbedel lagu sameeyey waxaan rajeynayaa waxaan u maleynayaa in uu maraayo xeerarkii ugu dambeeyay dastuurka waxaan rajeynayaa marka insha Allah bulshada oo annaga iyo guddiga haddii iskaashadaan waxaa soo baxayo dastuur dhammaystiran oo Soomaaliya insha Allah mustaqbalka wax badan ka bedeli doono annaga ka dhalinyaro ahaan markasta waxaan garab taaganahay waxay tahay nidaamkeena dowladnimo iyo inuu Soomaaliya ay yeelato dastuur madax bannaan oo qof kasta oo muwaadin ah oo dhalinyaro ah uu ka arkayo cadaalad maraya qayskii afraad ayuu maraya oo ah la tashiga dadweynaha waxa qorshaysan in la aado maamul goboleedada lagana bilaabo gobolka Banaadir oo hadda aynu ku guda jirno kulli waa ogtihiino dadka ugu badan bulshada Soomaaliyeed oo dhalinyaro boqolkiiba 70 ayaa lagu qiyaasaa meel kasta oo la tago oo laga hadlayo dastuurka waxaan rajeynayaa ama aynu arkaynaa in dadka ugu badan ka qayb qaadanaya ay yihiin dhalinyaro sida ku cad marka la eego dhinaca dastuurka iyo xuquuqda badan ee uu siiyay bulshada Soomaaliyeed oo ka bilaabmaysa qodobka 10aad ilaa qodobka 4aad ee dastuurka waxa ku cad xuquuqaha asaasiga ah ee bulshada Soomaaliyeed uu siinayo dastuurkeenu oo ay ka mid yihiin dhalinyaradu amaba ay yihiin bahda ugu badan su'aalahan haddaan soo qaato doorashada marka dhinaca doorashada iyo xildhibaanada da'da lagu soo dooranayo waxa la go'aamiyay inay noqoto 25 da'da 25 dood badan baa laga galay qodobka laga galay oo la yiraahdo la kordhiyo balse labada guddi oo ay ku badan yihiin xubnaha dhalinyarada ah waliba gaar ahaan guddiga OSI oo ka kooban labada gole oo ay ku jiraan xildhibaano dhalinyaro ah iyo senataro dhalinyaro ah iyo xubno kale oo iyaguna dhalinyaro ah ayaa kaashanka u daruuray oo go'aamiyay in aan la dhaafin da'da 25 sababtoo ah da'du markay sare u kordhaba waxa laga baxayaa xuquuqdii dhalinyarada ayaa laga baxayaa taas waa bishaaro aan idinka wado dhinaca dastuurka weeyaan oo ku aadan dhalinyarada ta kale waxaan ka warqabnaa in dhalinyarada ay jiraan tabarro fara badan oo xidhay xagga siyaasadda marka la eego 4.5ka marka la eego qabiilka marka la eego dhinaca maaliyadda balse waxa jirta hadda oo aan daahinaga saarnayn in dalku uu galay nidaamka asxaabta badan ee xisbiyada oo tabarradaas oo dhan aynu goosan karno haddaynu nahay dhalinyaro oo dalka aynu hogaamin karno adduunyada marka la eegana hadda wuxuu galay xaalad ah in ay hogaaminayaan ama ay soo baxayaan doorashooyinka ka dhacaya
macallimiinta cidda soo saaraysa waxa weeye ardaydooda oo iyaguna dhalinyaro ah matalan dalka Tunisia oo kale imika waxa ka dhacay doorasho ka dhacday waxa soo baxay nin macallina oo aan xisbi ka socon cid ka socon balse isagu kaligiis waday marka la qiimeeyay waxa la ogaaday in uu yahay qof ka soo dhaxbaxay bulshada oo ku hadlaya afkii bulshada afkaartii bulshada ayna xagga dambe ka riixayn balse cidda soo saartay ay tahay dhalinyaro waxaan idin leeyahay aynu ka kacno fadhiga aynu ka kacno dalkan innaga ayaa wax ka bedeli karna waxa laga hadlayaa dibashiisiin baa laga hadlayaa dhalinyaro isdishay oo isku dhacday ma jirto jaamacad ku duushay oo ay isdileen ma jirto balse waxa ina xilaya bay la tahay qabiilka ay ku hoostirno dhalinyaro aynu isku duubnaano dalkan innaga ayaa hogaamin karna aynu hogaaminno dastuurka wuxuu ilaalinayaa horumarka iyo dhaqaalaha wuxuu ilaalinayaa bulshada sinaanteedii iyo wada noolaanshaheedii dastuurka wuxuu ilaaliyaa amniga iyo jiritaanka dowladnimada iyo kala dambeynta dastuur haddaad maqashid ma aha wax dukumiinti inta la iska qoro mase laga doodo mase meel lagu tuuro waa wax jiritaan kayaan ummad meel degan oo dad iyo dhul iyo nidaam dowladeed leh ee kala nidaaminayo waay kaa marka waxaa loo baahan yahay in aad looga fikiro haddaad dhalinyaro tahay haddaad aqoon-yahan tahay haddaad jaamacad dhiganaysid inaad u fikirtid u furnaado waxaan waxa ugu horeeyo oo maanta aad berri dhihi kartid waxaa isiiyey dastuurka ayaa isiiyey xaqaas dastuurkii ayaa ii ogolaaday oo xujo uga dhigi kartid cid kasta oo xaqaada ku xadgudubto mase soo wajahdo wax walba ha ahaatee waxaana looga fadhiyaa marka inaan u wada istaagno inaan maskaxnada dhalaalino inaan iska dhaafno waxyaalaha yaryarka iyo qofka inuu ku mashquulo dowladdii waxaana ka jiro dad baa iskhilaafsan nidaam iyo qabiil iyo waxyaalo yaryar ah laakiin boqolkiiba 70 mise 75 awooddeedu waxaa waaye siduu sheegay xubintii guddiga Mustafa uu sheegay waxaa waaye waxaad soo saari kartiin hogaamiyayaasha aad soo saari kartiin waxaad soo saari kartiin dadka dalka maaragtay khubarada iyo aqoonta ayaa ka soo dhaxbixi kara laakiin haddaad adinka fikirin oo taladii u tiirisiin dad kale oo mase xilal hayo mase mas-uuliyad kala hayo oo tiraahid aniga waxaa waayo waxaan sugayaa wax in la hagaajiyo waxaan sugayaa in wax la ii qabto jaamacadaad ka baxday maalinkaad jaamacada ka baxday waxaa ku fuulayso marka u horeysa naftaada maaraysid iyo wax allaala wixii dalkaas uu mas-uuliyad kaaga wajahan waxaa ugu horeeya oo ku ballamayno waxaa waaye dastuurkaas inaad inbudkiinna iyo taladiinna iyo in aad u fikirtiin inaad kala tihiin mataqaanaa magacyaal kala leedihiin inaad dad kala duwan in dhalay in qabaa'ilo laga soo jeedo in deegaano laga soo jeedo wax macno ma samaynayso waxa macnaha samaynayo waxaa waayo inaad Soomaali tahay inaad muslim tahay inaad dal iyo dad iyo xuquuqdaada maxaa ah inaad u fikirtid inaad inta yar oo maaragtay la marin habaabiyey oo cadawgu uu isticmaalayo waa ubadkii waa dhalinyaradii Soomaaliyeed oo maalin kasta dhibka iyo dadkii ummadda indhaha u ahaana dilayo ayagana dhimanayo marka dadkaas badbaadintiisa wuxuu ku xiran yahay sidaad dowrkiina u muujiseen wuxuu ku xiran yahay sidaad dowladdiina u garab istaagteen wuxuu ku xiran yahay dastuurkan inaad talo fiican ka soo dhiibtiin oo cilmi baaris aad samayseen sababtoo qofka waxaa la rabaa inuu maskaxdiisa dhalaaliyo maanta adduunku wuu hormaray wax walba hortaaduu yaallaa oo teknolojiyadii iyo wax walba oo system ha noqoto nooc aad rabtid aqoon ah waad garanaysiin in lagu mashquulo Facebook iyo media iyo macno weyn laakiin markaad kala soo baxaysa aqoontii oo dalkaadii dib ugu soo celinaysay noqonaysaa mar labaad iyo mar saddexaad waa idinka mahad celinayaa guddigana
aad bay u mahadsan yihiin soo qabanqaabiyey kala isweydaarsigan oo aan rajayn doono insha allahu inay wax ku ool ah oo dastuurka soomaaliyeed talo wanaagsan inay laga bixin doono insha allahu sidaan joogto noqon doonto hadda wixii ka bilaawda dastuurka wuxuu noqonayaa in degmooyinka muqdisho 17 degmo la geeyo in gobollada soomaaliya la geeyo dhammaan qaababka lagu gaarsiin karo bulshadana in lagu gaarsiiyo sidaan u soconaysaa hay-adahana diyaar bay ii wada yihiin keli saano kale u qabanayaan ayagoo wada jiro way wada qabtaan markaa soo dhowaada waa hagaag daawadayaal halka aynu kaga soo gudubno codadkaasi ka hadlayay ama guddiga dib-u-eegista dastuurka oo kulan la qaatay dhalinyarada magaalada muqdisho dabcan codadkaasi waxa ay ka hadlayeen muhiimadda dastuurku u leeyahay bulshada iyo in dadku ka qayb qaataan dib-u-eegistiisa sida ay muhiim u tahay barnaamijka saakii dunida ayaan daawadayaal weli ku guda jirnaa marnay qaybihii dhexe barnaamijkan ku jirnaa laakiin waxaa jira dadku waxay nala wadaagayaan fariimo badan oo ay ku bogaadinayaan waxyaabo badan ay soo bogaadinayaan sharciga maanta madaxweynuhu saxiixayo dadku aad bay fikradooda kasoo dhiibanayaan waxay leeyihiin aad bay u ammaanayaan dhismaha ciidanka ee wasaaradda gaashaandhigga fikirkooda kasoo dhiibanayaan waa soo dhiibanayaan fikradkooda marka waxaan rabaa dhowr hal iyo laba inaan u akhrisid dadka u sheego maxamed xasan cumar oo markaasi fariin noo soo diray waxa uu leeyahay dowladda Soomaaliya way dadaalaysaa Allah noo daayo dowladda shacabkana waxaan ka codsanaynaa in dowladda la shaqeeyaan sidoo kale shukri meydal xuseen waxay leedahay ciidamada waa in xaq la siiyaa oo lagu dadaalaa dabcan waa commenti ma ama fariin ay ka soo dhiibatay arrinta ku saabsan dib-u-dhiska ciidanka وهي dalkaaga daawada ku soo gala waxa uu leeyahay guul Soomaaliya oo bogaadinaya sida wax u soconayaan waxa kale oo jira daawada kale oo lagu magacaabo Maxamed Cusmaan Maxamed waxa uu leeyahay waan idin salaamay baada warbaahinta qaranka gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waxaan joogaa Sanaag waxaan taageerayaa shaqada adag ee madaxdu ay wado iyo sidoo kale waxaan diyaar u nahay buu leeyahay inaan garab istaagno la shaqeyno dawladdeena dabcan waa fariimaha qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay noo soo gudbinayaan daawada kale lagu magacaabo Maxamed Bilow marka fariin noo soo diray waxa uu leeyahay sharciga in la ansixiyo aad bay u fiican tahay waa arrin wanaagsan laakiin macquul ma tahay in laga tago qabiilka dabcan arrinta qabiilka waxaan u maleynayaa dabcan inaysan sharcigu inuu yahay sharci adag oo meel ka soo geli karin waxyaaba loo diyaarinay waxay tahay in musuqmaasuq iyo marka looga hortago oo dawlad wanaagga lagu ilaaliyo marka halka fariimahaas waxay ahaayeen qaar kamid ah dadweynaha ay nooga yimaadeen aad ay noogu mahadsan yihiin sida ay noola soo wadaagayaan qaar badan oo kale ayaa jira oo fariimo aad u fara badan noo soo gudbiyay daawadayaal aad ku mahadsantihiin markana dalka Norway Soomaalida ku nool dalka Norway ayaa walaac xoogan ka muujiyay arrimaha falalka cunsurinimada iyo sharci kala noqoshada dadka waxaana halkaasi laga hirgeliyay qareeno u istaagay inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed waxa warbixin ku aadan dalka Norway nooga soo diray wariyaheena Xasan Saciid Xasan Raasta Norway waxa ku nool in ka badan 40,000 oo Soomaali ah dadkaasi Soomaaliyeed ayaa deegaan ahaan dalkan u kala qaybsan waxaana intooda badan ay ku nool yihiin magaalada caasimadda ee Oslo iyo nawaaxigeeda walow haddaba dalkan yahay mid aqbalay ogolaansho nololeed waxbarasho iyo mid shaqana siiyay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa haddana muddooyinkii ugu dambeeyay waxa aad u soo badanayay cabsida siyaasadda la xiriirta dadka lagala noqdo sharciyada deganaanshaha dalka Norway cabsi iyana la xiriirta caruurta la iska qaato aad ugu soo badatay dalkan sidoo kale falalka cunsurinimo ee ajaanibtu la kulanto gaar ahaan muslimiinta ayaa iyana ku soo kordhay muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Norway sida awgeed ayaan booqday xarunta qareemada ee Clementson iyo Maxamed oo ah xarun caawisa dadka Soomaaliyeed ee dhibka noocan oo kale oo haysto magacaygu waa Peter waxaan ahay qareen ka caawiya Soomaalida arrimaha sharciga guryaha iyo dhibaatooyinka kale ee la kulmaan sida cunsuriyadda waxaa ila shaqeeya qareen Maxamed oo ka yimid ama u dhashay dalka Pakistan iyo turjumaano kale oo Soomaali ah cidii aan waxaysan ee Soomaali ah waxaan ku caawinaynaa si bilaash ah
haddaba nala soo xiriir haddii aad tahay Soomaali ee intaasoo dhibaatooyin ah og ønsker alle velkommen inn til oss. aniga magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Xasan Xirsi waxaan u shaqeeyaa looreeda magacood la yidhaahdo Maxamed iyo kala midsan AS waa nin badan u shaqaynayay turjumaan baan u ahay markaas nimanka baan la shaqeeyaa waxaan wixii Soomaaliya doonayna caawino bilaash baan saacad hore ugu shaqaynaynaa wixii aan maxay tahay qarash haysanna waan la tacaalaynaa soo dhawaada waxaa jira dhibaatooyin badan oo Soomaaliya soo gudboonaatay wadanka Norway waxaan deganahay 31 sano dadku ma yaqaaniin xaqooda si u raadsadaan xuquuqda wadankan reer galbeedka dhan waxa wax soo saar waa lawyer haddana qofka lawyer leh waxa ma helay ayagana yaqaan sharciyadii jaamacadan uga soo baxay marka qof walba waxa fiican inuu lawyer raadsado si uu u helo xuquuqdiisa waaga hore dadku waa ku dulmanaayeen ilma la iska boobi jiray lama aqoon nidaam loo shaqeysto nidaam wax loo qabto laakiin dad waa soo ilbixin Soomaalidu waxay barteen nidaamka looyarnimada marka labada nin oo looyarka nina waa muslim nina waa Norwegian cadaan labaduna waa dad aad wax u qabto way dad badan oo Soomaaliya dhibaato u geysteen ay ka badbaadiyeen oo wax tareen marka dadku waxaan kula talin lahaa qof walba inuu helo lawyer free ah si uu u helo noloshiisa wax ka dhiman way noloshii waxay ku xiran tahay wadamadan lawyer hadduu qofku lahayn abukaate u doodo waxba ma qabsan karo meel kasta tigna waxa ka hor imaanaya cunsuriyad iyo nooca aqoon luqad la'aanta lafteedu waa cunsuriyad qofka hadduu luqadda fahmin cunsuriyada ku jirto marka qofkii hadduu waxba fahmaynin turjubaan Soomaaliya haystaan turjubaan Pakistan bay haystaan turjubaanadaas ku sii faa'iideynaya wax ka qoraya marka waxaad helaysaa afkaaga hooyo iyo lawyer wax ku qabta marka waxaan dadku la talinahay inay labada nin lawyer ka raadsadaan waxna ka faa'iideystaan xasan raasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway waa mahadsan yahay wariyaheena dalka Norway Xasan Saciid Xasan Raasta oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay waxaad daawanaysaan barnaamijka Saaka ee Dunida qaybihii dambe ay barnaamijka aynu ku guda jirnaa kaahiyo maxaa inoo xiga waxaa inoo xiga aqoon-yahanka Soomaaliyeed lagu magacaabo Cumar Cabdi Cumar Konoko oo markaa kamid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool dalka Canada ayaa waraysi uu siiyay wariyaha warbaahinta qaranka Muxuudiin Jaamac waxa uu kaga waramay dhibaatada ay keeni karto shida yarida waa shidaal yarida oo markaa muddooyinkii ugu dambeeyay dabcan markii la weeraray xarumihii shidaalka ee dalka Sacuudiga alla sheegay markaa sare u kac uu ku yimid shidaalka waxa uu markaasi ka hadlay weeraradii lagu qaaday goobtii sifaynta shidaalka ee dalka Sacuudiga arrimaha iyo arrimo kale soo waraysi ka bixinaya Muxuudiin Jaamac ayaa waraystay karanka Sacuudiga waxa la duqeeyay hadda abkeeg waxa weeye waxay u jirtaa maamulaya 150 km way u jirtaa maogtay Dahraan waa meesha waa processing plant lagu ururiyo shidaalka ku soo ururo shidaalka aagaas oo dhanba ku soo urura waxaan u maleynayaa something like shidaalka half ba halka ka baxa maogtay waxaan ka shaqeyn jiray 675 Aramco abkeeg area was the most important area maogtay waxa ku jira dhulka shidaalka aagaas oo dhanba ku soo urura rastarura ayana importana ras jaima importana laakiin meesha almost shidaalka ay soo saaraan 10 million hadduu noqdo barrels a day 10 hadduu noqdo milyan oo barrel waxa ka soo baxa meesha 6 milyan oo barrel wala soo weeraray waxaan ka yaabanahay waxay hub hiibsadeen iyo patriotic iyo hub ay hiibsadeen waxa loo difaaci waayay aagaas oo loo dhigi waayay wax difaaca oo ma ogtahay marka waa arrin khatar waxa ila game changer moogtay waxaan la filahayn moogtay lama filahayn Sacuudiga moogtay in sida loo weerari karo moogtay oo shidaalkooda saa looga dhigi karo offline moogtay hadda waxa waa processing balance kallay waxay ririnaysaa bay leeyihiin oo shirkadahan oo dhan waxay leeyihiin waxay ka xidhayaan meel ka fog way gobanaysaa intaasu dawal bid markiiba laakiin waa arrin khatar oo haday iminka dagaalka sii socdo waxay noqonaysaa in la iska duqeeyo oilka moogtay oilka in la iska duqeeyo noqonaysaa moogtay Iraq laga duqeeyo oo kuwa laga duqeeyo oo Iran laga duqeeyo oo Qatar laga duqeeyo oo marka waxay dagaalkii wuxuu yeeshay face kale moogtay Facebook yeeshay kale oo very dangerous waxa fiican in la escalate gareyn laakiin Mareykanka amateur-nimo iyo Carabaha Iran bal targerin iyo doonay in la yiraahdo maximum pressure moogtay nin haysta waxan oo hubo oo gantaala haysta oo hub haysta oo Iran waxay sameysay for the last 40 years waxay la wareegtay Syria, Lebanon, Yemen,
ciraaq bay la wareegtay moogtay carabtoo dhan bay ayay la wareegeen moogtay lacag bay siiyaan saaxiib bay ku leeyihiin moogtay marka waxaynu uga faa'iideysan karaa meesha inaga oo lowskeena dadajina shirkadihii oilka ahaa haddaan aqaano moogtahay oon executive ahaan jiray they always looking moogtay markii uu ka dhacay dagaalku ciraaq baana la kulanay niman nala shaqayn jiray oo executive marka waa 90 weeye moogtay waa June 90 anaga July baan shaqada joojinay way baqeen markiiba waxay yiraahdeen haddii ciraaq markii Kuwait la qabsaday weeye moogtay markay wax dhacaan these oil companies they assess things waxa loogu noqonaya marka in maanta la weeraray abgeeg oo refinery-goodii 10 million barrel meel ka soo bixi jirtay 6 million barrels laga dhigay off moogtay la burburiyay waa game changer weeye moogtay waxay noqonaysaa Middle East in haddii uu Donald Trump oo isaguna very volatile sii joogo hadda waaba degan yahay moogtahay waxay noqonaysaa Iran in aydan la weeraro iyagana kuwan kale ay weeraraan Imaaraadka weeraraan Qatar la weeraro ciidamada la iska weeraro marka 100 years ki u dambeeyay waxa ka dhacay adduunka qas iyo dagaal iyo weerar oil buu la xiriira moogtay ilaa moogtay 100 years ki u dambeeyay waa dhaqaale waxa la isku leeyahay moogtay waxa Soomaaliya imkan loo soo weerarayo ama Kenya u soo weerarayso ama cid kale u soo weerarayso ama Ethiopia u soo weerarayso waxa weeye badda in la qaato xoolaheena in la qaato shidaalkeena in la baxo marka waxa mas'uuliyad baa ina saaran haddayna Soomaaliya inay soo tagno waxaan uga baahanahay iyaga inay shuruuc sameeyaan constitution ku horeeyo waxbay bilaabeen in la dhameystiro xagga petroleumka inay sameeyaan petroleum mining codes iyo petroleum and mining codes in la dhameystiro resource sharing sida wax loo qaybsanayo waxa u badan waxa Soomaaliya isku haysta wax loo qaybsanayo moogta in la dedejiyo company lawska all these laws moogta every head waxay u baahan tahay in wadanka in environmentka la ilaaliyo laws buu leeyahay moogta mining labor lawska company lawska civil lawska baraska iyo sida loo wada hadlayo moogtay mucaaradka sida loo shaqeeyo dawladdu laws baa loo baahanaya dadka waa in laws kala wada moogtay dawladda waxa mas'uul ka ah moogtay dawladda federaalka iyo regional kuba moogtay regionals waxa way very important waayo dhulka la doonayo wax laga baaro regionka xukumo regionada moogtay xukumo oo leh moogtay ay hoos tagaan moogtay marka dawladda waxa u weyni aan uga baahanahay xagga oilka hadda iminka dadkii shirkadihii waxa la eegayaa Hormuz meeshan Hormuz oo Iran iyo isku haystaan iyo Mareykanka iyo Khaliijka iyo aad arkaysan shidaalka in laga duqeeyo Sacuudiga waxa laga fikirayaa iminka xagee alternative Africa East Africa hadda iminka Rovuma Valley meeshan u dhaxaysa Tanzania iyo Mozambique waxa laga helay gaas aad u badan dhulkeena waa dhulka aad loo danaynayo shirkadihii aan u shaqayn jiray mesela Conoco iyo waxay aad u doonayeen inay ka soo fogaadaan badda cas oo idinooshka ka qaataan shidaalka moogta ilaa halka safe moogta shidaalka soo maray halka wuxuu u baahan in ciidamo ilaaliyaan moogta maraakiib waaweyn daba gasho oo marka shidaalkii cir ku tagaya moogta marka inaga hadda waxay noqonaysaa hadii iska xalilmaya kan moogta laakiin waa problem taagan Iran waxay noqotay power waxa isku xidhmay Iran iyo Ruushka iyo Turkiga iyo China moogta marka Iran ma wada la riixi karayo waxay noqonaysaa in la macaamilo oo iyaga la heshiiyo oo termskooda la yeelo waxa laga yaabaa inaynu faa'iido ka helno inagu intaas moogta oo qaskaas inaynu wax ka faa'iideysan karo deenu awood leenahay moogta oo shidaalkeeni dib loo gali karo marka markii shuruucda la soo dhaafo waxaan uga baahanahay dawladdu inay shirkadahan la yiraahdo mother companies kamaniyadan waaweyn oo oligopoliga ah xoog leh oo adduunka moogtahay wax ka qaban kara oo shidaal soo saari kara oo lacagta leh oo haysta imkaaniyaadka mesela waxa kamida Exxon moogta waxa kamida Shell waxa kamida ConocoPhillips waxa kamida Total waxa kamida BP moogtahay waxa kamida NI kambaniyadaas oo kamaniyo waaweyn waxay ku xidhan yihiin waxay kula jiraan heshiis wadanada oo dhan adduunka oo dhan Japan China iyo kula jiraan inay 50 years ka soo socda shidaal supply gareeyaan moogta marka explorationka marka la sameynayana lacag bay keenayaan marka wadanadaasu mesela Conoco baan u shaqayn jiray mar
waxaan samayn jiray xal ila cash goolka lacagta waxaan ka keeni jirayba Japan China Dubon haddii aynu inagu siino 50% kambaniyada waaweyn anigu mother company-ga u bixiyay mother company waa company badan jiidanaya waxay haddaynu siino 50% oo na wixii soo baxa marka 51% 50 si iibinayaan 10% bay wax siinayaan Japan mining company ama China 10% ay oranayaan waxa bixisa 10% iyo 30% cost ka moogta 10% baanu idin siinaynaa 50 iyagi saddex company bay wax siinayaan min 10% ama shirkadaba xitaa shal oo kale siinayaan moogta waana u diyaarba moogta 30% cost ka moogta waxa laga yaabaa company-gan mother company-gu inuu 90% cost ka helo meel kalaba oo 50 ga inuu siinay 20 na soo haro 30 inuu sii iibiyo oo waayo shidaalku waxa loo baahnaa 100 million barrels per day moogta bal imagine shidaalka loo baahnaa adduunka moogta waliba industries ku sii bacay marka Japan 50 years ka soo socda waxay u baahantahay shidaal joogto ah moogta waa industrial China India wadan wali saas noqonaya wadanada aynu u baahanay inaynu soo dhaweysano wax kamida Turkiga oo wadan muslimna German yihiin laakiin waa wadan ina caawiyay waa industrial shidaal badan buu u baahnaan doonaa inaynu ka qayb galino oo marka hadii la inagu soo dulo wadanada aynu ku ersanayno moogta hagaag daawadayaal halkaaynu kaga soo gudbino waraysigaasi Umar Konoko oo markaa uu la yeeshay wariyaha warbaahinta qaranka ee dalka Canada Muxidiin Jaamac barnaamijku waa saaka iyo dunida qaybihii dambe ayaa ku sii dhawaanay markaana akhbaraadka dibadda Alusa Cabdiraxmaan Yacquub ayaa noo soo jeedinaya daawasho waca wararka caalamka